marka weligaa dagaal qoys iyo dagaal qabiil iyo dagaal kooxeed mid ha ka qayb gelin dagaal qoys tolkiiyo kabta waa lagu dhex jiraa xagee ka timid tolkiiyo kabta waa lagu dhex jiraa tolka hadduu khaldan yahay subax buu ka dhaqaaqay nabi maxamed tolkiisii salawaatullahi wasalaamu calayh soo ma ogidin maka meeshuu ku dhashay nabigu qoyskiisii iyo reerkiisii inuu hal subaxa ka haajiray oo welibana god uu galay abeese ay ka buuxdo isagoo la cararaya diintiisa war diintaada la cararee qabiil dagaalkii hal shilin haddaad ku bixiso 100 shilin haddaad ku bixiso lagu dhaho rasaastii baa ka dhammaatay ciidankii dagaalamay ciidanka kale ka hor joogay oo aad rasaastaa lacag 100 shilin aad ku bixiso oo dad lagu dilo xabadii aad adiga wax ka gaday ninka meesha duurka ku jiray shuftada ah ee wax dilahaya iyo adiga lacagta bixiya isku midami baad eelunaar baa tahay afna ha kaga qayb gelin adibna ha kaga qayb gelin waxa kaliya kaga qacala suubisa waxaa weeye aniga hal shilina kuma bixinahayay dagaal sukeeye iyo dagaal qabiil iyo fidna tolkiiga qabta waa lagu dhex jira Soomaalidu waxay dhahdaa faqiih tolkii kama janna tago waa been waxba kama jiraan faqiih ma taqaana ninka caalimka macna tolkiisa hadday meesha wada maraan meesha uu iska mari war adeer waa tolka ay khaldan yihiin khaladka ka qabee ha ku raacin haddaad waxba ka qaban karin oo munkarka reebi karin afkaaga haysay banaanka ka joog laakiin hada dadii hore zamaani markii geela la kala dhici jiray Soomaalida geela kala dhici jirtay geel baa la soo dhici agoon baa la arkay in laga soo dhacay geela reeraan la soo boora duuga xooloodii oo dhan la soo kacaysani wadaadka cidda baarqabka u ah yaa loo keeni geel saasoo isha u marini hasha isu qabato tan ku dhufani ushu ku dhufani baa isaga qaadanaya taa markuu la baxo wuxuu dhihi inta kale waan idin xalaaleeyey ma geel booliya xalaalooba marka waxaasoo kale ha noqonine ha ka qayb qaadani waxaasoo kale weligaa wax noocaasoo kale ha ka qayb gelin